aqoon-yahanada cali xaydid ayaa ka deeyay xaaladda nadaafadeed ee magaalada Wajaale. Aqoon-yahanka oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxa uu yidhi kawaanka hadda Wajaale maadaama arrintaas waa arrin aad u dhib badan lagu mudan waayo kawaanka hooyooyinkay baa jooga kawaanka hablaheennii baa jooga fayadhowr marka laga hadlayo laba meelood haddaad iska hagaajin weydaadeen ummad maaha ummaddaasi may fahamtay waa laba meelaha arrimaha bulshada ugu fiican weeyaan waa arrin saamayn karta xagga caafimaadka qoys kasta oo Wajaale ku nool ama Soomaaliland ku nool say u saamaynaysaa laakiin meesha hilibka yar iyo khudradda yar iyo wax yar waayo qoys kasta isagoo salad sariibada taga oo kawaanka taga Soomaaliland oo u doonta adeegii reer kasta lahaa hadday meeshaasi aanay fayadhowr lahayn oo very poor hygiene and sanitation tahay marka waxa weeye adan waxa la qabtay isaga sheekanayna waxay noqonaysaa ma garanayo lacagta badan ee haysta ma tarayso gaadiidkan badan ee haysta waxa la hayminalada ma jirto ma aha un adar bakhaarada inteena hortooda inaad wax iga shishubto laakiin de waa move forward hore in loo socdo ayaa daruuri ah qofka nool wuxuu ka fikiraa meesha ay arrinta muhiimadeedu taalo waa maxay halkaas adar kawaanka inaga hagaajiya bal loo tagaadeer إلا هو مال حول الله وخلوا يديك يلا أسك يلا دكين بيقالنا نسا وحنا نقول قرما يا مركو وحنا قرمنا وحسكو بدلنا ولا وذكرنا يا عفوا هذا سليمة بلا الله تقدم تعيش تقدم مركب ما دسنا ما ندام سنة ما يفهمتي هذا صار وكشوت كله وريري سان سيما تاني هذا وين لا دسوا وين لا رجية وين سبب لوردكو وين لون نظاميو سليمة وين الحاجات يا كوانك labadaa meelood haddana naga hagaajino waxa waliyo wax noo qabatay ma jirto adan labadaa meelood caafimaad baan ka rabnaa nadaafad baan ka rabnaa waxaan ka rabnaa meel indho la eegi kara inay noqoto laakiin meel qulantay inay noqoto oo wax laga xishoodo if the big thing have very small beginnings wax kasto weyn ilaahay meel yar buu ka bilaabay saymaatan haddii qoyskiiba daryeeli karay adan maxaad bulshada sheekayn kartaa maxaad hoggaan igu sheegan kartaa oo wax laga xumaado kawaanka wax loo dul qaadan karayo ma aha cid kasto ay xusaysanayntay timaado inay eegtaa daruuriya sariibadu waa sidoo kale dumarka dhibka istooriya waa facility loo sameeyo meel wax la saarto xaq bay u leeyihiin in la dhiso ranji loo sameeyo dhulka wax la dhigo haddaad gashay ilaahay baa yaab ku keenay dawladdu way arrimo waaweyn tahay waa hawshii ay dawladdu lahayd weeye marka arrimaha noocaas laga sheekeeyay hooyada wax ka qabanaysa dawladdu waa tii dadkeeda hagaajin sariibadooda iyo kawaanadooda saymaatan waa muhiim more than anything else هذا المدحتوية إنه قم يمسنتها ويا هيلم كلا قصة قاضي قيس كستوى لو جينا يقول كستوى لو جينا مع الوسير كلا جينا حتى أنا ماشي فيدور كده في عيني ولا والله شاك الشكل أنا ممكن dhinaca kale maamulka degmada Wajaale ayaa ku guul dareystay inay ilaaliyaan qorshe magaaleedkii ay hawlaha guud u sameysay magaalada Wajaale kaasoo ay xukuumadda Soomaaliland kaga baxday lacag aad u adag laguna hirgeliyay amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kadib markii uu gubtay suuq ganacsi oo ku yaalay magaalada Wajaale isla markaasina la waayay wado uu maro dabdamiskii baqtiinaya suuqaasi waxaana halkaasi ku shufbeelay malaayiin lacag oo ay lahaayeen muwaadiniin reer Wajaale iyo kuwa guud ahaanba ka soo jeeda Soomaaliland iyadoo wadooyinkaasi xidhmayna ay markii hore bixiyeen maamulka magaalada Wajaale dhibaatada laga macaashina ay noqotay mid aanay reer Wajaale mahadin haddaba gudoomiyaha degmada Wajaale Xaashi Maxamuud Cabdi waxa uu hore ugu dhaartay in la xidho maamulka magaalada Wajaale haddii la arko wado dambe oo ay bixiyaan ama ay ciidajiyaan waxaanu Xuseen ilaalin doonaan qorshe magaaleedka ay hawlaha guud u sameysay magaalada Wajaale isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi sida aad u wada arkaysaan waxa maanta inoo yimiday wafdi wasiiraa xildhibaano iyo injineeradii hawlaha ujeeddada culayskaa faraha badan leh ay u yimaadeen waxa weeyaan dhibaatada townbalaynka ee ka taagan degmada Wajaale sidaynu wada ognahay berigii dhaweyd waa tii dhibaatadu ka dhacday dabka dadweyne fara badan ayaa annaga nagu eedeynayay inaanu wadooyinkii haddaanu ibinay imika wixii ka dambeeya arrinkayagu waddo dambe haddaanu taabanno arrinkayagu waa xadhig dadweynahana waxaan u sheegaynaa ninka waddo dambe dhistaa yaa ama meelaha shaqaalaha laaluush siiya inuu cidduu siiyey iyo isaguba isna xadhig yihiin
arrintani uu ka hadlayay gudoomiyaha degmada Togwa Jaale Xaashi Maxamuud Cabdi ma ay rumoobin oo dib ayay maamulka degmada Togwa Jaale u fasaxeen dhammaan wadooyinkii ay hawlaha guud banaysay ee hantida adag kaga baxday xukuumadda Soomaaliland waxayna dhaafsadeen lacag sida ay sheegayaan dadkani madan ku cabana wax weeyaan musbaarka meel lagu nabayo lacag bay ku qaataa dawladda hoose way simayn saddexduba albaabkaas shalay ugu dambeeyay musbaari ninka waa lagu xirasho $100 bay qaadatay maanta tow dambeysay wax weyn xukuumaddu noo cadeysay tumaad wajaala maamusha laba imikaas qabala wax weyn dawladda hoosiyada waxa weeyaan masaakiinta kunool degmada Togwa Jaale horta waxa weeyaan laba loo kala goostay waxa weeyaan dawladda hoose waxa weeyaan barandiisha $100 bay qaadanaysaa 7 cisho markuu jirana hawlihii guud baa galaya wartay ama dawladda hoose loo daayo meeshii oo waxa weeyaan halka u gaarto lacagta qaato ama hawlihii guud loo daayo horkii wax leeyahay sidana wax laga qabto inta dadka lacag laga qaado ayaa hadana biri laga dabaymanaya haddaba marka ay sidaas jirto maamulka degmada Togwa Jaale waxa ay jabiyeen ballantii ay u qaadeen xukuumadda ee ahaa in la xidho haddii la arko wada dambe ay bixiyeen sidoo kalena maamulka degmada Togwa Jaale waxa ay ku fashilmeen inay ilaaliyaan fiya dhowrka magaaladaasi halkii quruxda badnaa ee wasaaradda hawlaha guud ay u samaysay magaalada Wajaale ayaa guud ahaanba noqday mid shaxbuuray isla markaasina waxay magaalada Wajaale ay noqotay magaalo aad u fool xun isla markaasina isdhex taalo aan indhaha dadku jeclaysanaynin Mukhtaar Nuux Ibraahim Ariel TV gobolka Gabiley